sokeeyo walaalow Soomaali nimadii weli wasideedii raxan weyn waa sutaga laba bahood oo xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira oo la yiraahdo Digil iyo Mirifle oo gaar ugu fidsan dhulka u dhaxeeya Afgooye ilaa Luuq iyo baar dheere laga soo bilaabo ilaa iyo dhulka Jubbada Hoose iyo Shabeellada Hoose laga yimaado. laakiin sida macruufka ah waxay deegaan ahaan ku magacaaban yihiin labada gobol ee Bay iyo Bokool. dad badan magaca raxan weyn waxay ku qaldaan magaca Jufada Eelay oo kamid ah jufooyinka Digil iyo Mirifle la isku yiraahdo. afka mayga oo kamid ah labada lahjad oo uu afka Soomaaliga ka kooban yahay waa dadka ku hadla, laakiin barta juqraafi ahaaneed oo ay dalka kaga yaalaan iyo tirada dadyooga ku abtirsada ayaa ka dhigaysa bulsho xadaari ah oo dhinac walba oo nolosha kamid ah qayb weyn kaga jira. dhul hodan ku ah daaq iyo duunyo ayaa eeba ku galaday. deegaanada ay degaanna waa kuwa ugu faca weyn deegaameysiga marka laga hadlayo. magaala madaxda gobolka Bay ee Baydhabo waxaa berisamaadkii lagu magacaabi jiray Australia. qabowga, dhirta cagaaran, ilaha biyaha, duunyada iyo beeraha ku yaala ayaa ka dhigtay in loogu yeero Geyi Aarana. waxaana aqoon-yahanada culumta beeraha bartay ay rumaysan yihiin in dalagga wax soo saarka kasoo go'a aanu kaliya dabooli karin baahida cunno ee dalka ka jirta, balse sidoo kale uu dakhli kusoo ridi karo sanduuqa qaranka haddii si fiican loo maalgeliyo beerahooda. nasiib darro, abaartii ba'aneed ee dalka ka dhacday bilowgii 90-meeyada, reer Bay iyo Bokool waxaa kasoo gaartay hadiimo ba'an oo naf iyo maalba waa ku waayeen. xusuusaha qaraar ee laga diiwaan geliyay wixii dhacay waqtigaas waa in maalin walba 10 qof ku dhawaad ay u dhiman jireen gaajo iyo haraad, laakiin 30 sano kadib waxaa dhulkooda ka jira soo kabasho iyo kobac bulsho oo xad dhaaf ah. noloshuna uma adka sidii hore, dhaqdhaqaaq ganacsi oo xawli ku socda ayaana ka jira. inkasta oo sida aan soo sheegnay sida Soomaalida kale aanay kaliya deegaan lagu yaqaan ku noolayn, balse sidoo kale ay ku hadlaan afkooda gaarka ah, haddana taasi marnaba kama horjoogsato inay ku milmaan kuna dhex baahaan bulshooyinka jaarka la ah iyo kuwa ka baxsan. waxay u badan tahay inay joogaan gobol kasta oo dhulka Soomaalida ka mid ah, iyaga oo ama ganacsi ama xirfado kale oo bulshada wax ku ool u ah qabanaya. mugga si dhow loogu fiirsado kaalintooda, Soomaalidu sinaba ugama maarmi karto kartida iyo daaqada ku jirta tulweynaha raxan weyn oo ay jecel yihiin inay ku biiriyaan dhismaha nolosha dhaqaale iyo kobaca ganacsiga dalka. dad ahaanna waa bulsho nabadeed oo aan xasaradihii iyo dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay marnaba si toos ah uga qayb noqon. halka magaalooyin badan oo dhulka Soomaalida ka mid ah Mooraduug iyo Bililaqo lagula kacay dhicistii xukunkii kalitaliska ahaa ee Maxamed Siyaad Barre kadib, magaalada Baydhabo waxay ahayd meel aan marnaba loo dhicin hantidii qaranku lahaa ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhaxaysay. abuur ahaanna waa dad la majeersado xaggooda marka ay timaado saaxiibtinimo waarta. da'yar firfircoon oo widaynimadu ku weyn tahay iyo habla cascas oo kamid ah kuwa ugu toolmoon gabdhaha Soomaaliyeed ayaa mar walba oo aad deegaanadooda tagto kugu soo dhaweynaya niyad sami iyo galgacal. quruxduna sida xawaadlaha waa astaan lala xiriiriyo gabdhaha raxan weyn. waana halka uu Xasan Aadan ka yiri eegmo beerjileec leh boogta ma iga tuurtay, kuna halqabsaday fanaanka Cumar Dhuule oo u qaaday heesta Baydhabo ma gaarnaa. diin jacaylka iyo xalaal miirashaduna waa u astaan, waxaana dhacda in qoys dhan ay mar qura u wada fariistaan subax inay akhriyaan. saldanooyin badan ayaa guyaalo kala duwan kasoo jira dhulweynaha raxan weyn, taas oo muujinaysa in faca jiritaankoodu uu guun iyo abka warqab yahay. haddaba waa markaadee wax nooga sheeg walaalaha raxan weyn, ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane muuqaalkanna u baaha si ay u daawadaan.